hogaamiyaha ismaamulka Tigreega ayaa xaqiijiyay in madaafiic ay ku tuureen dhankaasi magaalada Asmara caasimadda waddanka Eritrea ilaa 3 madfac ayaan ku gamnay ayuu yiri oo aanu ku tuurnay dhinaca Eritrea. ninkan ayaana waxa uu sheegay in arrintan ay kaga gol lahaayeen ka jawaab celinta weerar Eritrea ay ku garab siisay ra'iisul wasaare Abiy. madaxweynaha ismaamulka Tigreega Debretsion Gebremichael ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka Eritrea ay ku gacansiinayaan Abiy Ahmed aysan ahayn mid u bacbacdhigi doonta oo Tigreegu ay isdifaaci doonaan sida warka uu yiri. dagaalka iyo qalalaasaha Itoobiya ka jira ayaa si laba jibaarmay iyadoona xaaladdu ay u muuqato mid ku daba dheeraanaysa marka la eego dadka shicibka ee waxyeelada soo gaaraysa. ilaa 4 bishan November ayaana dagaalka Itoobiya iyo ismaamulka Tigreega uu ku dhex maraya deegaanada ku hareeraysan gobolkaasi Tigre.